dowladda Itoobiya ayaa ku howlan sida ay u diyaarsan lahayd qaab dhismeed sharci iyo hanaan isku xidhan oo la xiriira siyaabaha ugu habboon ee uga faa'iideysan karto isticmaalka dekadda Berbera taasoo ballaadhin iyo dib u casriyeyn xooggan lagu sameeyay sida lagu daabacay wargeyska Reported ee ka soo baxa dalka Itoobiya waxay dowladda Itoobiya isu diyaarinaysaa sidii waxay uga soo degi lahayd waxna uga dhoofin lahayd dekadda Berbera balse intaan arrintaas si buuxda loo hirgelin waxay Itoobiya doonaysaa in hay'adaheeda arrimahaas u qaabilsan iyo daneeyayaasha kale ay xiriirka wada leeyihiinba ay isla meel dhigaan mashruuc iyo nidaamyo u fududeyn kara isticmaalka dekadda Berbera madaxa hay'adda rarka maraakiibta iyo fududeynta adeegyada kala duwan ee dalka Itoobiya Roba Magersa ayaa sheegay in muddo 20 sano kadib ay markii ugu horeysay toddobaadkan dekadda Berbera ku soo xidhan doono markab weyn oo kuwa xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Itoobiya halka sidoo kale markab kalena dekadda iman doono dhawaan isagoo xuseen labadaas markab ay ka sii hawlgali doonaan dekadda Berbera ka hor inta si rasmi ah loo dhameystirayo shuruucda ay Itoobiya doonayso inay u fududeeyaan isticmaalka dekadda Berbera hay'adaha rarka gaadiidka badda komishanka kastamada waaxda gaadiidka iyo socodka badeecadaha ee dalka Itoobiya iyo dhinacyada kala duwan ee daneynaya isticmaalka dekadda Berbera ayaa ku howlan diyaarinta qorshayaasha iyo shuruucda dhinaca Itoobiya looga baahan yahay ka hor inta aanay dowladda Somaliland iyo Itoobiya si rasmi ah u kala saxeexan heshiiska madambayna oo la xiriira isticmaalka dekadda Berbera iyo jidka casriga ah ee Berbera Corridor geesta kale shiray leeyihiin hay'adaha kala duwan ee dalka Itoobiya ee daneynaya isticmaalka dekadda Berbera ayaa lagu falanqeeyay sidii go'aan looga gaari lahaa noocyada badeecadaha ay Itoobiya kala soo degi doonto kana dhoofin doonto dekadda Berbera Somaliland iyo Itoobiya ayaa la filayaa inay dhawaan kala saxeexdaan heshiis dhex mari doono oo la xiriira macaamilka isticmaalka dekadda Berbera oo dib u casriyeyn lagu sameeyay iyo gaadiidka kala duwan ee adeegsan doona wadada isku xidha Itoobiya iyo magaalada Berbera dhanka kale Somaliland ayaa iyaduna dhinaceeda sii diyaarinaysa shuruuc arrimahaas la xiriira iyadoo toddobaadkan magaalada Hargeysa uu ka qabsoomi doono shir dib u eegis loogu sameynayo tafaasiisha heshiis hore u dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya sanadkii 2016 kaasoo la xiriiray isticmaalka dekadda Berbera iyo socodka badeecadaha ka gudbaya dekadda iyo tacriifadaha dekaddu qaado waxa kale oo lagu falanqeeyay qodobo ay ka mid yihiin arrimaha kastamada iyo buuxinta halbeegyada caalamiga ah ee badanaa laga rabo dawladaha marka ay wada galayaan heshiisyo miisaankan oo kale leh shirarkan Itoobiya iyo Somaliland mid walba gaarkooda u yeelanayo ayaa qaar ay labada dal isugu diyaarinayaan heshiis la filayo in labada dawladood ay dhawaan si rasmi ah u kala saxeexdaan kaasoo la xiriira isticmaalka dekadda Berbera iyo jidka Berbera Corridor Khadar Haybasaab TV Hargeysa